weliba ii hagar baxo anuun iga eegta aadmi markaad adinkaaga weydee dhammaan waxyuhu ilaadeen ee aad iilkaa madow ama he dadaal meediyo isaguna imika dhawaan aanu kasoo dayn doono waxyaabaha cajab geliya sida taxanayaal sheekaba sheekay keentahay oo kale ruwaayadaha waa isagana dadaal meediya isagana waxbay gaar u noqonaysaa aanu ka hadalno channelkeena Abwaan Xabiib waxaan saan maalmahan baan idin sheegay waxaan soo socota ama aan soo wada qiso labaad oo iyadu laftarkeedu aan wali tii ahayn farxadda mayn gelin qisadan labaad iyaduna waxa weeyaan waa qiso murugo leh waa qiso naxdin leh murugo leh in badan dadka ka qiiraysiin doonta in badan aad oohin doontaan tii hore kuwii ooyi waayey tan waxaan hubaa inay ooyeen waayo tan aad bay u qiiro badan tahay sidii horena usoo dhigi mayno qisooyinka markaynu taxanaa ka dhigayno habeeno u khaasa ayaynu soo dhigaynaa habeenada u khaaska baynu la soo wadaagi doonaa qisooyinka sida habeenka arbacada iyo habeenka khamiista iyo habeenka jimcaha saddexdaa habeen aad nagala soo socon doontaan qisooyinka wixii sheekaana habeenada nagala socon doontaan iyadana gadaal baan idinka soo sheegi doonaa sidoo kale gabayada habeenada aan idin soo bandhigi doono isagana wixii gabay cusub ee igu soo kordha aan sameeyey ama wixii gabay abwaan kale sameeyeyba waa youtube-ka sida magaciisa ka aragtaan waa Abwaan Xabiib Abwaan Xabiibna kolley wuxuu koobsanaya wixii abwaano kaliya maaha anigu wixii gabay aanu sameeyay soo dhigayo maaha gabay aanu sameeyo kaliya inaan soo dhigayo maaha balse abwaano kale aad u xiisayn doontaan ama aad u tixgelin doontaan ama aad gabayada maasooyinkooda ka heli doontaan is leedihiin xageed ka heshan gabayga waan jecelahay in idinla wadaago waayahay qisada hadda aynu soo wado qisada magaceeduna waa kaas qisada magaceedu waa kaas weeyaan saasoo tahay qisadaasi ayaan insha Allah habeenka arbacada ee iminka nagu soo socota aan idinka soo dayn doonaa iyadoo waliba taxanayn isla inagu bilaami doono qisadaasna taxanayn noqon doonto saddexda habeen ee habeenka arbacada habeenka khamiista iyo habeenka jimcaha saddexda habeen hamoogaanina wali asxaabta ku xiran Abwaan Xabiib channel ama xiisaynaysa ama daneynaysa waxaan leeyahay Abwaan Xabiib channel subscribe way jiraan dad daawada qisada way daawanayaan ama gabay uu arkay ama uu daawanaya bas subscribe ayaan saarin asxaabta waxaan leeyahay marka isha ku dhafataanba hala baqayn subscribe saar waayo wadawa horena u sheegnay inaan ku wada hadalno maaha way wanagi dad kala maanta wax isweydiistana way ka sharafayeen dad wax isku hore mooyaan laakiin dad isbariya way ka sharafayeen hubo waan hubo inaan idinku aydan dhaafin subscribe way waxa tiintadan jecel iyaguna jecel intaan jecelahay ama inta ay jecel intaan waan jecelahay og waxa ka badan intaan jecelahay ogeyn ba ka badan intaan jecelahay anigu ogeyn ayaa ka badan saasoo tahay waxaan leeyahay mar walba ku xidhnaada Abwaan Xabiib channel oo in la wadaagi doona waxyaabaha xiiso geliya sababtan sheekooyinka u sameynay ama aanu Raxmaan Cabdi aan ugu dibnay waa si loogu raxmo YouTube maaha qaybta dadka waa inuu kaliya inuu saarno oo marna gabay ama jacayl ama waxa ka sheekayno maaha qaybta ciyaalka yar marba loo saaro marba fiican tahay in qaybta ciyaalka yar loo saaro oo maawali caruurta lala wadaago ciyaalka saasoo tahay aad waxaan ugu faraxsanahay inaad idinkuna ila socotaan oo mar walba garabkayga aydan ka maqnayn ana saasoo kale waan ku faraxsanahay saasoo tahay daba waxaan jecelahay mar walba inaad ila socotaan oo idan iga caajisin waayo idinkama caajiso anigu haddii aan awoodo wax walba inaan idin soo sameeyo waan awoodi karaya waan idin soo samayn karaya laakiin idinka caajiso idinka niyad jabo ha ka baqanin isku si baan idin jecelahay isku si baan idin daneeya idinkuna saad jeceshiin baan aniguna idin jecelahay waa Abwaan Xabiib idin leh hamoogaanina qisadaas xakuye ku aroortay baan dhammaan ciladaba ogaanay inaad tahay halyeydhisaa dhabtii annaguna eegtaa ayaanta yeelkeenu heedhe habaal ay kuu habeeyeen ayaan annaguna ogaanay